بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan kusoo jirnaa casharadeenna ahaa koorsiga ahaa normal and abnormal labor. waxaan soo bilownay abnormal labor. waxaan sharax ka soo hadalnay casharadkii ahaa malposition and malpresentation. oxford posterior ah malposition ka soo dhameynay maalin hore. shalan waxaan ka hadalnay malpresentation soo bilown oo ahaa aan ku bilownay face presentation and brow presentation. maanta waxaan gelinaa presentation. wali waxaan kusii guda jirnaa mal presentation. yani aan soo dhameyn mal position, haddana waxaan sii wadaynaa mal presentation. waxaan ka hadli doonaa maanta bridge presentation. bridge presentation yani muxuu yahay? yani bridge presentationka badanaa waxaa waaye pictures iska fahmi doonaa inuu horta yahay longitudinal line. yani line markan waxaa leeyahay inuu noqdo longitudinal samayn ama inuu noqdo transfer ama inuu noqdo oblique line. marka waa asaga marka waxaa leenahay waa longitudinal line. laakiin waxaan leenahay meeshii la rabay inuu madaxa hoos soo jiro headka waxaan leenahay buttocks ayaa waxaan leenahay waxay yihiin presenting part. ayaga waxay imaanayaan ama lower limbs waxay noqonayaan presenting part. yani presentation kan wax noqon doona isbedeli doona kaliya oo noqon doono lower limbs ama buttocks. laakiin line waa isku midkii asaga iyo cephalic waxaan leenahay waa isku line. yani waa longitudinal line. incidence-giisa ma badno waa 3.5 yani percent ay yahay masala markuu term yahay. laakiin wuxuu ziyaadaa risk wuxuu ziyaada ama preterm wuxuu ziyaada in the case of preterm. yani marka preterm waxa ziyaada risk of breach. marka daarka patient breach presentation mostly I will to compare the date of the LMB ama date of gestational age ka hubinayna inay meeqay tahay pregnant geeda ama mostly waxa la socon karo preterm. marka waxaan leenahay markuu term yahay mostly ma badna waa 3.5 laakiin wuxuu ziyaada percentage ka waxaan leenahay 25% uu ziyaada markuu yahay preterm. sidoo kale waxaan leenahay waxaan ka hadli doonaa etiology-geeda. waxay leenahay etiology-geeda iyo waxaan ka hadli doonaa types-keeda iyo how to manage-keeda ayaan ka hadli doonaa. marka etiology-geeda waxaa leenahay waxaa jiro risk factors of maternal factor and fetal factor. maternal waxaa kamid ah in polyhydramnios. polyhydramnios maxaa waaye? yani ay etiology sababa breach-ka waxaan leenahay wuxuu ziyaadinaa mobility ama free ay wuxuu ka dhigaa mobility of the fetus-ka uu ziyaadana ama wuxuu yareynaa mobility of the fetus. labaas mid waa yani inuu bato mobility umadan soconayo wareegayo ama inuu yar yahay. yani inuu badan yahay waxaa keena polyhydramnios. polyhydramnios waxay yareynaysaa ayadana movement-ga yareynaysaa. uterine anomalies asna waxay yareynaysaa movement-ga yareynaysaa yani meeshii abnormal uterus waa bicornate septate uterus uterus wuxuu noqonaa abnormal uterus wuxuu noqonaa biseptate yani cavity-ga waa yar yahay marka waxaa leenahay ayadana wuxuu yareynaa inuu sameeyo conversion inuu soo wareego sida caadi waxaan arnay bila fetus markuu bilaabo wuxuu ahaana breach kadib uu soo wareegsana wuxuu noqonaa cephalic presentation. marka waxaan wax yareynayo dhaqdhaqaaqaas waay iyo inuu badan dhaqdhaqaaq space inuu jiro combine yani lesions sida waxaa kamid ah fibroid meesha waxa dhex fadhiisa uteruskii fibroid kaasoo yareynaysa movement-gii. marka waxaa soo wareeji karaa. sidoo kale waxaa jiri kara placental abnormal sida placenta previa placenta previa waxay ku dhigan tahay lower uterine segment-gii. ayada waxay joojinaysaa inuu soo wareegsado oo sameeyo fetuskii headkiisii ama inuu noqdo cephalic presentation ay diidaysaa wuxuu aana kor joogaa maxaa yeelay soo wareegi karo meeshii placenta ku dhigan. multiparity yani markay multiparity taa mustay garan multiple waxaan leenahay uteruska waxaan leenahay iyo abdomen waa weak. marka waxaan waxay fududeynaysaa ayadana inuu mobility-ga ziyaadayo. sidoo kale CBD yani hooyada waa contracted pelvis yani waa abnormal waaye pelvis-keeda waxaan leenahay waa small ama waxaan leenahay waa contracted pelvis. ayana waxay ka qayb qaadanaysaa leenahay ka qayb qaadanaysaa inuu noqdo risk factors-ka inuu noqdo placenta previa inuu noqdo breach presentation. fetal factor ama factors of the fetus-ka hayeen maxaa leenahay preterm ugu muhiimsan hadduu preterm yahay soo ani mother kula imaato breach presentation mostly waxaa ugu muhiimsan oo ka fiirna waxay tahay inay term tahay maxaa yeelay most ama the majority of the patient of breach presentation waxaa leenahay waa preterm. fetal anomalies sidoo kale ayana ay patient ilaa imaato breach presentation laba shay ka fiirna inay tahay preterm in kale haddii preterm yahay after delivery waxaan ka fiirinayna ama ka jakimanaa wax loo yaqaano inay jirto ani abnormality ama ani anomaly of the fetus. sidoo kale multiple pregnancy yani waa twins waa laba ayadana waxay keenaysaa inuu breach noqdo waxaa yaraanaya movement-gii. fetal dis ma jiro ama soo wareegi karo inuu soo wareegsadaa la rabay. markuu ahaa head kor oo jiray oo soo jiray head inuu soo wareegsado oo sameeyo version soo sameeyo cephalic version madaxa hoos imaado ma imaana waa dis waa dhintaba. black heart waa small ayadana waxay diidaysaa movement-ga yareynaysaa.
sidoo kale inay jirto extended leg sama legina extended yihiin taas waxay markay yareynaysaa inuu conversionka ay yareynaysaa sama yani waxay interfere ku sameynaysaa inuu soo bedelo soo wareejiyo waxa loo yaqaan spontaneous cephalic versionki ayay yareynaysaa marka waxa leenahay factors ka labaad ka fiiri wax yareynayo movementigi yani sida umbilical cord short ah fetal disc iyo kale multiple pregnancy waxaas waxay yareynaysaa movementigi sama fetal anomalies preterm iyo inuu bato movementigi sida polyhydramniski fibroid waxay yareynayaan ta movementigi marka waxa leenahay typeski yani waxaan soo fahanay bridge-ka waxaan inuu leeyahay typeskiisa waxaan leenahay inuu noqdo complete iyo inuu noqdo incomplete number 1 waxaan waa complete number 2 waxaan waa incomplete incomplete kala barx iskala qaybsama frank footling and knee waxaan sawirada fahmayna soo socdo waxaan complete waxa waaye asal more common wuxuu ku yahay multipara waxa waaye more than 2 parad yani hawada laba iyo wax ka badan marka waxaan leenahay multipara sama yani waxa arkaysaa knee and hip labada waxaan leenahay waa flexion so flexive يعني knee joint and hip joint waxa arkaysaa inay tahay is flexive waxaa leenahay waa flexion ay ku jiraan labadaba waa arkaysaa mid jira beenama incomplete waxa kamid ah frank waxaa leenahay wuxuu kama ku yahay primary gravity knee are extended laakiin hip waxaa leenahay waa flexion waxaa leenahay hip waa flexive laakiin waxa isbedelay knee footling maxaa dhacaya wuxuu kama ku yahay badana pretermiga single bridge ka sama badana waxaa leenahay hip and knee labada waxaa leenahay waa extended yani hip and knee labada waxaa leenahay waa extended arki doon labadaba waa extended ama knee waxaa leenahay hip are partially extended and the knee are flexed one or both side position maxay marka dil weydiiyay what is the position of bridge sawirka ka daraxba waxa isku murjin types kan sawirka fahmin aad hayfina fahmin inuu jiro complete kulli of flexed yahay frank inuu yahay hipta inay tahay flexed laakiin oo yahay extended oo yahay knee sama footing waxaa leenahay inay labadaba ahaan extended sama positionka maxay tahay positionka waxaa leenahay waa sacrum waxaa noqonaa anterior position wuxuu ka badan yahay sacro anterior and sacro posterior sama yani sacrumka inuu noqdo anterior waxaa loo yaqaanaa sacro anterior position markuu noqdo posterior ka aado waxaa leenahay waxaa loo yaqaanaa sacro posterior position sama inuu posterior ka aado yaa kuma dilgeed waxaa common ah sacro anterior yani waxaa leenahay yani ani presentation waxaa leeyahay dhahnay dominator bone sama face waxaa dhahnay sama mentum proud waxaa frontal bone sama vertex waxaa occiput tan ayaa tan waxaa dominator ku ah sacrum waxaa ma hore soo jira mas posterior mas anterior yaa koobana inuu jiro sacrum inuu noqdo anterior position sidoo kale waxaan leenahay pictureska hadda ayadan aan ku fahmayna more and more yani typeskiis muxuu yahay kan hadda waa complete sama complete waxaa ku gartay this waa hip bone maxaa leenahay waa flexion and knee joint waxaa leenahay waa flexion sama marka waxaa leenahay this waa complete franking maxaa dhacay franking waxaa leenahay hip weli waa sama waa sidii isku midka waa yani hip waxaa leenahay waa flexed and hina waa flex sama hipta waxaa ku jirtaa flexion waa sama ku jirtaa yani waxaa loo yaqaan flexion point sama yani waa laakiin kneegan muxuu ahaa kan oo complete ka ahaa flexion ahaa kan no was bedelay waxa noqday extended sama extended samee marka flexion waxa uu soo laabanaysa marka saanta hal waa flexion sama saana xalina waa extended marka xalina knee are extended and hip are flexed midaman tan waxa dhacay leeyahay ayadana incomplete bridge ka saw wuxuu leeyahay typeska yani incomplete ka isku dhaha frank and footling sama footling and frank waxa isku dhaha incomplete tan waxa la complete waxa waayo kana knee joint are extended and hip are flexed sana waxa waayo waa flexion ku jira yani waxa leenahay this is waa complete frank waxa leenahay hip waxa leenahay waa flexed laakiin waxa leenahay knee ayaa extended frank waxa leenahay waa incomplete footling waxa leenahay waa incomplete footling soo yahay footling ka waxa ku jirta foot sama yani foot are presented in the cervix ama fajamaka bibiisa ana arkaysa foot ku jirta sama why maxaa yeelay knee are partially extended sama and hip waxaa partial extended kana hada kan waxaa leenahay complete flex sama kan waxaa leenahay waa frank yani waxaa leenahay frank waxa noqon kara hal xabo waxa noqon kara labadaba noqon kara waa kana other picture kale waa fiiri kartaa asagana picture kale waa kana fiiri ana waa footling frank sama footling and frank kan waa frank sama waa kana waa frank maxaa waaye hip kan waa flexed knee gina waxa leenahay waa extended sama dis waxa leenahay marka waa frank kana waxa leenahay waa footing sama footing yani foot ka waxa leenahay joog sama hoos waa kana example kale fiican waa kana footing sama footing yani tan waxa leenahay
وفرانك سما محايل كان هو complete flexion and extension محايل هو فرانك سما وكنا فرانك كانوا فهم كتاب فرانك وكنا فرانك سما this محايل هو فرانك أنا محايل هو فرانك محايل هاي و hip محايل هو flexion and knee are extended this محايل هو فرانك كان محايل هو complete hip are flexed and knee are also flexed يعني complete محايل هو كل flexion وكل جد كانوا حالنا هل من flexion أم كلمة extension أم extended تسمع حالنا هو complete كاميرا كو حالنا هاي complete footing sometimes حالنا قاعد إنه حالنا هاي هو hip كو حالنا هو extended knee are extended and footing سما كانوا حالنا قاعد أيضا إنه نقول footing إنه نقول كنا فرانك سما كانوا حالنا هو footing يعني حالنا this is foot مش حالنا footing this is footing تبغى كم حاول footing كم حاول footing كم حاول complete كانوا حالنا هو فرانك كان مركو حاجة knee سما يعني present part هو knee يعني سواء حالنا هاي hip flexion سما sorry extended يعني hip bone extended ومركان تنا flexion مركان hip bone كانوا حالنا هو flexed تنا كانوا حالنا هو extended سما نيجا محاوي و flexion سما هو لابد يعني نيجا كانوا flexion انت نو حالنا هو flexion لكن كان extended مركو حالنا كان knee foot سما تسمى حالنا هاي footing يعني تنا footing تنا هو knee تنا حالنا هو complete تنا حالنا هو sorry complete and frank صور كله كل ما صورنا كم بديو كل ما واحد بدنا كفاهم يسا صورة في عفية هذا كان حواي complete bridge complete محاول قرنا كل فيه hip flexed knee flexed سما صورة محاول هو كجرا flexion سما وسكوا أربسين frank فيه hip flexed سما لكن knee محاول extended سما knee extended يعني كان محاول knee لكن flexion سما كان لكن هو extended marka extended waxaan nahay waa pre waa frank waxaan garanaa knee-ga waa extended hip-tana waa flexed complete asana waxa yahay flexed hay footing waxa waa kana footing waxaan nahay foot-ka waxa ku jirtaa sama bv marka bv sameeyso foot qaadanaysa waxa loo yaqaanaa footing bridge sama footing bridge hada tan lama dhigi karo footing laanu foot kor jira sama waxa hoos jira waa butub kana sidoo kale waxa waa isku mid ah labada marka bv sameeyso labada isku mid noqonayaan yani waxa dareemaysaa only the sacrum and the buttock sama كان لكن حوالي فوتين أيام أركيسا and the position is كواحد سنتين شيء يحول مقلابين سو يعني ما نقول هاي position is كعنده صاشر حنا أخرى position is محولها عنا هني محولها denominate سما أي presentation محولها denominator كيسياء سكرم سما يعني first position هنا قلنا سكرم نقول anterior محل كوادنا يعني سكرام كأيام حالنا هاي وحنا قلنا anterior سما حسوا anterior حالنا مرك حالنا طبعا قلنا مرك right and left مرك حالنا left سكرو anterior and right سكرو anterior سما يعني right and left سكرو anterior أيام نقولنا يعني هذا right كان هذا left لكن فينا anterior كتاعي وحنا قلنا نقوله posterior سما مرك حالنا right and left سكرام كانوا هذا anterior or هنا هذا right or left posterior. How to diagnose pelvic حلوة bridge. It's very easy to diagnose. most هذا هو نوع ultrasound. وأقول لك وعها وحلو diagnose كري clinically. هذا لكن ما دام أدون خلاص ultrasound سكالة no need أنا بحب نسكول بطبع أنا clinically. لكن أقول وعها ما جري ultrasound not available so حل استعمال جري clinical كم حل يجري وحنا فينا حلوة كأنه pelvic and fundal grip سما يعني مثلا سوينا examination سما this is حالنا sternum سما sternum كده سحنا uterus كده سحنا هوا lower limb سما this سحنا هوا hand سما لو تجمع this مركز حالنا fundal grip واقعنا سما تنا حلو قلنا pelvic grip يعني مركز هوت أمر على pelvic grip this fundal grip ما حكوا أركز ما كوا أركز ما ده حيوان جوا كرسمة بدأوا bridge مركز ما حكوا أركز هو قرص إنه smooth hard rounded إنه يعني بلاتوبن سما mass إنه مصر حالنا tender كلا كتامنا سا pelvic خلاص لك مركز ما تعركز سما عكسنا وانا بعدين إنه soft يعني محايد هو حاجة بريتش كي بطو كي lower limb سما هنقولنا soft mass سما مركي لو في hard ما جوكا كانوا هنقولنا سما soft round ما جوكا هنقولنا irregular بلاتوبل هنقولنا not بلاتوبل سما يعني بالفعل هنقول إن this is واحد clinical هذا clinical كالاستعمال جري سو كده حاولوا قرنا كمان fetal heart مش اللي قدر يجسنا fetal heart مركو بريتش وحاجة اللي يجسنا above the level of the umbilicus يعني مركي أنت umbilicus كتاعي above أما right أما left مش باقي جرا أما باقي أنتوا جرا ما باقي أنتوا جرا سما يعني واحد above the umbilicus لكن مركو كي أو هي cephalic presentation حاجة يسمى below أنت أم right أم left below the umbilicus أي حاجة يسمى سامر كي أو هي
cephalic presentation laakiin markuu yahay breech presentation head kor u jira waa inaad baag wuxuu jira kor right or left above the umbilicus kan below the umbilicus markuu yahay cephalic marka breech waxaan garanaynaa inuu yahay above the umbilicus sidoo kale waxyaaba aydan lagu garan karo waa vaginal examination yani laakiin sidii saxan waxaa lagu diagnose gareeyaa ultrasound laakiin haddana waxaan leenahay waayo ultrasound ma jirin badan ama available ma qaali sanad jira clinical soma clinical waxaan leenahay abdominal soma examination and BV examination soma abdominal waxaan leenahay waxaan garanaynaa fundal grip iyo pelvic grip kor iyo hadan fiirina iyo meesha laga dhisan fetal heart ka maqlaysid vaginal examination waxaa arkaysa wax loo yaqaan 3 pony landmark soo waxa jira pon landmark marker iyo institutionaya inay tahay breech maxaa waa labada ischial soo labada ischial tuberosity soo waxa la tu ischial tuberosity soo ischial tuberosity haye iyo tip of the sacrum ayaa ka dareemaysa soo sidoo kale xalana butuga sidoo kale xalana ayaa taabanaysa soo ayaa taabanaysa bit side of butuga ka ku arkaysa labada boniska soo sidoo kale waxaad arki kartaa fresh meconium shal marka kale meconium ka ashkan ku saaleen normal level ka meconium ka xanaan inuu yahay normal inuu yahay markii aad breech presentation way maxaa yeelay waxaan dhahnay waxa hoos ku soo jiraba anal kanalka wuxuu yaala hoos marka BV sameeyso yani meeshan saaran marka BV sameeyso waxa gelinaysa your finger in the anal canal waxay sameeysaa inay furto internal sphincter ki sama external sphincter ki waxa arkaysa meconium soo baxay meconium soo baxay waa normal laakiin markii uu yahay breech presentation uu yahay cephalic presentation madax hoos jiro BV marka saad baraha taabanaysa soo ma anal kana kor uga jira marka ma arko meconium soo baxay waxa this waa distress fetal distress haduu yahay cephalic laakiin waxa leenahay meesha waa normal yani markuu breech yahay don't worry ha ka walwalin the meconium waa normal hadii no waxa leenahay this meconium is normal waxba walwal hasku furin investigation oo maxay tahay normal investigation iska addressa normal investigation addressa maxay tahay CBC urine general ki so on blood grouping ki charismatic ki wixii normal waxa la tacaamulaysa as normal level sidoo kale investigation addressa waxa kamid ah dhahnaa iyadana ultrasound muxuu yahay laga faa'iida to confirm the diagnosis so ya ultrasound ka waxa uu isticmaalaa inuu isaacido waxyaabo soo socdo to confirm so diagnosis inuu confirm gareeyo wala this waa breech way maxaa yeelay bala computer kan saar ultrasound kan saar harka fetus madaxiisa kor jiro this waxa la this breech presentation haba dib oo baahna dibkan amarayna clinical ka baahna badada haysta ultrasound to detect the type of breech ku sheega sama ayaan sidoo kale wuxuu ku sheegaa gestation age inuu term maadaama aan dhahnay ani breech presentation waxaan you must confirm the gestational age maxaa yeelay waxaan anada most common waa preterm la socdo marka waxaan ogaanaa gestational age ki iyo fetal weight ki sama ayaan ku fiirinaynaa si aan mataqaana markaas aan u fiirino weight kiisa sama exclude maxaa yeelay ayadoo arki doona normal vaginal delivery waxa muhiim ah shuruud u leeyahay weight-ka waa inta iska badan waa inta iska yaraanin weight-kaas muhiim marka inaad si ogaano aan inoo xisaabina weight-ka noo xisaabina iyo gestation age maxaa yeelay waa inuu term yahay waa inuu weight-ka intaas yahay ayaa waxyaabaha criteria of inaan rabo inaan u sameeyo vaginal delivery lana decision laba noqona inaan section sameeyo inaan sameeyo normal vaginal delivery marka waxa ku xirantaa weight-ka iyo gestation age marka waxaan isku hubineynaa sidoo kale to exclude inaan sameeyo hyper extension of the head sidoo kale to exclude inaan any congenital anomalies waxaan aragnay sidoo kale waxyaabaha the most common cause waxa kamid ah congenital ajiro anomalies so you must to exclude inaan congenital anomalies sidoo kale diagnosis waxaan leenahay and suspected twins waxa leeyahay twins ay tahay aan la ogeyn ayadana ku sheegay marka waxaan ultrasound waa very helpful for the labor room exactly yani wali markuu bukaanka uu yahay pre-presentation how to manage يعني قابك manage قرينسا how to manage patient of breech ka ataqaan waxaan sida normal ka loo dhaqmay sama yani admission oo sameynaysa investigation oo soo sheegana sameynaysa ultrasound ki waxa soo sameynaysa sama bartogram ki waxa ma furanaysa laakiin waxa ku furan tahay waxa sameeyaan optionadan ko marka aad aragtay breech tahay ina optional ii furan ina dhaho waxaan ku sameynaynaa elective cesarean section waxa ay breech ka waxaan leenahay waxa safe for mother and the fetus cesarean section oo sheegaysa if agree hadii waa faqad loo sameeyo cesarean section markaas kadib waxa bilaabaysa processka cesarean section waa fahmayna yaa loo sameeyo cesarean section ku aqrina hadan soo mid oo sharaxna A B C B ina oo loo yaqaan external cephalic version yani inaan fetus maadaama breech aha inaan soo wareejiyo madaxiisa soo wareeyo hoos keeno ana gacanta banaanka ma isticmaalayo ana waxba qalin gal ama inaan u sameeyna vaginal breech delivery ina aad u leeyahay vaginal delivery saddex option oo furan mid afraad ma jiro yani any patient of breech waxaan inaan u sameeyna cesarean section as a safe for fetus and mother vaginal delivery and external cephalic version ama external cephalic soo
cephalic ama cephalic version يعني waxaan rabnaa madaxii soo wareejiyo hooskeena waxaan ku bilaabnaa number A elective section yaa loo sameeynaa qalliinka sama section kii u baahan section kaas shuruud uu leeyahay sama yani haddii oo bridge la socdo any presentation oo any associate of obstetrics and medical complications hadii wax aan medical complications ka diabetes mellitus ki hypertension ki twins yani any complication la xiriiri karo obstetric and medical haduu jiro waxa leenahay is better in loo sameeyo elective cesarean section sidoo kale baby haduu large yahay oo ka badan yahay mostly xana hadda waxa la gaarsiiyaa 4 kg laakiin kuwa waxay leeyihiin 3.7 kg ama ilaa 4 kg waxa ku qaar waxay leeyihiin no يعني cesarean section waxay leeyihiin 3.5 marka 5 nasi qaadanayna 5 kasoo waxaan leenahay mostly 3.5 ilaa 3. يعني inuu ka yar yahay يعني haduu 3.7 ka badan yahay macnaheedu waxa waaye cesarean section waxa laakiin haduu ka yar yahay 3.5 doo kale waxaan arkaynaa waa normal ama uu leeyahay waa normal vaginal delivery sidoo kale waa inuu haduu yahay preterm ayadana risk waay yani preterm-ga vaginal delivery waxa waa complication badan oo keeni kara maxaa yeelay markuu preterm yahay waxaan waxa waa small size sama small size kaas marka waxa laga yaabaa inuu soo aan noqon fully dilatation soo noqon example soo 8 cm ayuu soo daga fetuskii dhan madaxa og tahay markuu preterm yahay uu ka yahay other yani remaining body sama justiga shoulderka putu wax dhan madaxa ka weyn markuu preterm yahay marka waxa jirka inuu soo baxo madaxii uu haduu soo bixi waayo oo ahayn full term ayadana complications laga cabsanaa markuu yahay preterm yani waxa laga soo dago fetuska dhan soo baxo ayadoo 7 cm uu yahay cervixka headkan uu ka weyn yahay jirka inta kale uu soo bixi waayo sama marka xubin preterm waxa better hadii labor noqoto in loo sameeyo section footing bridge waxa ka cabsanaa ayadana footing bridge waxa high risk u jiraan wax cord prolapse inuu soo dhaco cord prolapse maxay cord prolapse ashiraan oo hadda soo socda yani waxa risk u jiraan oo sameeyo loo yaqaan cord prolapse sama marka xalina hay cord prolapse yani sidana risk of cord prolapse ka soo yahay footing-ka sidoo kale in complete ka mostly we can give half a vaginal delivery complete ka nooca ma xubaa badan dib badan ma keenay laakiin complete ka footing ka xidhan is better in loo sameeyo cesarean section haduu jiro hyper extended head ka doo hyper extended yahay soo waxaan lagu arkaa ultrasound daar inuu head ka hyper extended yahay maadana xaleena laakiin wax weyn not big deal yani wax weyn hadda ma ahan oo hadda mataqaana oo badan hadda ultrasound qaar waxa la isfaan lagu arkin hadii jirto contracted pelvis soo yani contracted pelvis jira hooyada يعني مينس محاوى هذا مينس برايمري جرافيتي لانه هذه بارا 2 بارا 3 بارا 4 تهي يعني هذه تاع مالتي بارا اما جراند مالتي بارا ما كعبسن انه contracted pelvis that's why حركه the most hospitals يعني the guideline of any bridge primary gravity for cesarean section why maxay yahay waxa laga cabsana contracted pelvis maxay lama baraaween ba lama test lama sameeyeen lama hubinin inuu shaqeynaa in karsama pelvis keeda inuu markii ugu horeeyay fetusku ugu horeeyay laakiin hadii hore bara 3 bara 4 u tahay maxay yahay pelvis keeda waxa noqon adequate sama yani ma noqonayo contracted pelvis laakiin markii uu contracted yahay way must waxa ka cabsanaya kuwa primary gravity abnormal pelvic haduu jiro sidoo kale yani shape-ka abnormal yahay ama haduu jiro uterine dysfunction hadda waxa leenahay waa is better sidoo kale complicated pregnancy jiraba PIH complication preeclampsia diabetes ki waxa la prompt hadda waxa leenahay hadda prompt waxa ka cabsanaysa ama rupture membrane dhaca waxa ka cabsanayna cord prolapse waxa leenahay ama placenta insufficiency IUGR oo kale waayo any complication waxa leenahay is better for elective cesarean section akademiyada qaamuus e-learning fogaan wax ka dhigasho kuu fududaynaysa inaad wax walba aad danaynayso aad barato adigoo gurigaaga jooga qaamuus waa kaalin waxbarasho online ah looguna talagalay kobcinta iyo kor u qaadista aqoonta baraha iyo barayaashaba sidoo kale u diyaarinta qalinjabiyaasha siday u abuuran lahaayeen shaqo cesarean section ka yani most transition the primary gravity ده حاليا mostly of pre-primary gravity وحاليا is equal cesarean section اي primary gravity guidelines mostly hospitals كحاليا any primary gravity is better cesarean section واي محايل بس هذا شيء انه محايل maternal passage كسمع عن maternal passage وعنا هنا ولي لما هو بيسمى not tested in a can be delivered or not لهاي ولي primary gravity this is the first pregnancy we don't know that pelvis is enough or not so I can say هذا انه head soo bixi sama maxay la pony oo dhaco pony compaction sama no dhici karo marka waxaan leeyahay xalanahay criteria dii laga xalanahay waa sameeyna cesarean section the most waxaan primary gravity xalana is better for cesarean section external cephalic version waxa la jiro sama external cephalic version ka maxaa laga wadaa
external cephalic version يعني waxaan dhahnay ama external cephalic isma shay yani inaan bedelno aan ka dhigno cephalic yani meesha bridge ka ahaa inaan madaxa soo wareejino hoos keeno hadafku wuxuu yahay in la sameeyo in bridge-kii aan ka soo xawilno aan ka dhigno cephalic transabdominal noo isticmaala gacan ma visualization soo ana banaanka imaan external soo wareejinayo haye goorma la sameeyo time-ka goorma mostly waxa fiican in la sameeyo xilligan 37 yani mostly waxaa la sameeynaa 37 is better maxaa yeelay yani haddii aan yani inuu mataqaana usual u noqdo fiican after 36 yani waxaan 36 ilaa 37 way aan u sameynaynin tanagata soo labadan way aan u sameynaynin in early maxaa ka cabsanayna inuu early maxaa la early sameeyo laba shay ka cabsanayna kan koobaad maxaa ka cabsanaysaa haddii inuu sameeyo wax loo yaqaano recurrence sama inuu soo laabto sama ama recurrent inuu soo sameeyo inuu sidii ku soo laabto marka uu wareejiso 32 aha ama 30 ah uu soo laabana waxa ka cabsanaa soo laabashay sama inuu mataqaana uu recurrent soo sameeyo haye inuu isku laabto labo maxaan ka cabsanaa haddii ay labor gasho fetusku sodan labo ah saddex waa taabatay labor gashay haye cunug muxuu noqon hadhow yani wuxuu risk u gelinaysaa inuu mataqaana normal yani waxa risk u gelinaysaa inuu u baahdo nursery in loo diyaariyo inuu cannot be survive sama inuu soo noolaan karin banaanka ku noolaan karin maxay soo bilitaan cunugta taabat marka waxaan leeyahay fiican markuu term soo gaaro 36 ilaa 37 loo sameeyo mid haddii inta labor oo galo soo baxo cunuga baa noolaan kara 37 haddii mataqaana marka laba xabaan ka cabsan sama inuu san dhici karin oo salaabi karin dhow maxay already qaba weyn fetuska weynaado waa soo wareejis ma laabana mar dambe number labo ma dhaco xilli dambe after 37 lama sameeyo yani 38 39 lama sameeyo way aan loo sameeyay maxay size-ka weynaanayo fetus markuu size-kiisa weynaado waxaa leena waxa adkaanayo mataqaana difficult noqon procedure-ka sidoo kale waxaa leena waxa yaraanaya hoos u dhacaya likerkiisa ama likerka hoos u dhacaya waxaa difficult noqonaysa in loo sameeyo xilli dambe waxaa soo kar markii inuu failure garoobo inuu sameeyo waa la soo wareejiyo yani kasana first ka arkay sawir xataa ku arkay waxa waa la soo wareejinaa bridge way baa soo qabanaysa soo wareejinaysa sawir ahaan arkayna يعني حالنا large size واحد fetus كوحية ماكروسومي baby واي سما large size baby أما ماكروسومي baby أوليجو هذرامنيا سما بول هذرامنيا صح حالنا هوا بيها بدن بيها يا سما حالنا هوا هذا جالين صار يعني إنه فيلر جروبه short أمريكا كورت كوحية short سما يتراين حاجة anomalies كيسنا سيباي كفرنايس سيبي هذا حالنا هوا وحي فيلر جروبه يعني حيبقى كنا إنه فيلر نقطة marka maadaama external cephalic ama external cephalic fish ama sharaxday wax ma leedahay complication ama wax ma contra complication way leedahay contraindication waa leedahay yani waxa laga contraindication yaa loo sameey karin hooyada contract benefits waa sameeyay waa soo wareejisaba madaxa kor u jiray hoosa keenta ma soo bixi kara hadhow maxay already waa contract benefits benefits kida waxa waa primary gravid sama primary gravid ay ahayd wili test lama sameeyo hadda can be delivered or not so ma u sameeyno so multiple pregnancy ما سمعت كنا أيضا و contraindication يعني لبا pregnant ولا لبا ورجع صح على يعني complication ده عباسم سيدا كتير أنا indication في سيرة section يعني بكون كم حالة high blood pressure diabetes سما أنا يعني واحد كعب سنة already يعني IUGR حيوان هو حاجة رو indication of سيرة section أما حالة تو إسكار وان إسكار أنا already section هجلي هذا بس section جلنا محا أسوي ورجع أولي با على section هسكت الشب هير سفر سما بدي حيوان بدنا large هاي دوا وسوي ورجع سما ده حاسة كان مصابيح كراب ما حاول يفتح مركب هذا ولا خلاص احنا كونتر انديكيشن لو بحنا او سمي هذا سفلس كاس مدحوين اي بي سما يعني انت بارت مريج جرب سما هذا وريج سي وحي كشب انت بارت مريج كشي برازنت بريفيدي ابربشي بلا بعد هذا مسؤول كان كوي اني فجان بريدي حنا جوج انت بارت مريج هي يوترا اسكار واي هذا كره قلين جش سينا سكشن مو بحنا نسوي حيل وحو كنا ربشر يوترس هو كو قرح حرام يوترس كنا يلال ربشر يوترس هي hypertension qabtaa sama hypertension qabtaa preeclampsia waxa laga yaabaa already inay abruption baraag gasho ma fahantay ama mataqaana ay conversion ku gasho ama waxa laga yaabaa hadhow ay u baahanto already insection la geliyo maadaama shayga baanta soo wareejay waxay tagtaa isoo wareejisay oo sa keentay dadaal bixsadana waxa leeyahay insection marka waxa igeli waysa qalinka ku dhamaa waxaan already qalin galto nagada anu taataabo baray magrafid sidoo kale waa soo wareejisay waa keentay hadhow waxay noqotay contract bilfs noqotay khalaas maxay ku tagtaa maxaa markaa foreign scan section rupture membrane IUFD and IUGR complication iska waxa leenahay markii ay keeni karto maxay tahay complication waxa leenahay ay keeni karto waxa kamid ah accidental hemorrhage oo dhici karo sama yani sida abruption placenta ay keeni kartaa complication maxay yeelay waa soo wareejinaysa waxay keenaysaa inay dhacdo rupture uterus inuu dhaco separation ay dhacdo placenta ay keento abruption placenta inuu dhici karo rupture membrane inuu noqdo preterm soo andhahay xilliga la sameeyo noqdo 37 maxay laanta taabado dhaco preterm labor already baby oo noqon kara term
وهذا can be alive سما cord presentation سما أن prolapse كأني كتاب سما وريجي وريجي صور عبا عايز immunization هذا هاد RH negative كأني كتاب مركي إنه fetal ديجي أوجر ده سو أي هاي RH negative وحالنا حالسينا anti D مركي لو سماه after مركي لو سماه external cephalic version معايا لو حال زيادة ريسك إنه جد بسمه fetal maternal transfusion كأنه جد ما كان بيكتر كذا شيء خلاص له كستان في محل وضع في تسكن مضح يسكروا جري وإيمانه سا وسوري جنسا وحكينا سا هوس وحلو كان إكسترنال سيفاليك فيرشن على وش أنا ما هذا إكسترنال يعني برنامج استعمال برنامج سووا يعني وسوري جنسا وهي بعد رف إكسبرت ده سواء دي مباح دولكسي جوجينو ياب توكسير أمانة سا هي فجأة حد حسب هني سدحت أوبشنا وحنا هني إن الله سمينا أي سيريان سكشن إن الله سمينا أيو external سيفارك قدام الحواي فجأة دليفري عادي أو بلنا سوون فجأة دليفري مركو عيب بعد بري ريكوست شروطين هذا not means أني بكان أو فجأة أو منطقة بريجنا هذا فجأة دليفري نو كو أنا نقطة فرانك وأما أنا نقطة كومبليت أنا ريدنا بريج بريزنتيشن كي ويت كيس إنه سان كبرنين 3.5 إنه سان كيرين 2.5 يعني تود حيل 2.5 إلا 3.5 يعني إنه سان كيرين كنا برنين مالتي بارس إنها يعني إنها سنهين برايم جرافيد إنها سنهين يعني ميز محاور مالتي بارس ميز محاور حال سوه بيه بلفيس كده إنه أدكويد إنها فيه أي أف دي سيدا قلنا حالنا كان بي دليفري فجانل سما أي أف دي فجانل يعني دليفري سما أن complicated برينس إنه يا شروطها حكمتها وحاول أن complicated إنه دليفري هاي فلكسد هيد فلكسد هيد محاور إنما حاول هيد كوي have good flexion سما age كيسو set 3 to 4 يعني بريتيرمينا ما بوست تيرمينا ما اديكود بلفسك محاواي ماشي مينس waxa soo gelayso erey ah multi bar sama يعني hooyada multi bar means waxa la huba inay اديكود بلفس laakiin primary level lama hubi karo sama lama hubi ilaa ay chance qaato oo loo yaqaan trial of labor infasal la siiyo trial of labor kadib waxaan karnaa contract bلفس waa normal progress of labor by using other isticmaalay particular يعني loo isticmaalay waa in normal process kala marsiinayo shuruudaha leedahay bartogrام الاستعمال سيدا كنا حالينا هاي unexpected سما obstetrician يعني sorry experienced أما expertise of obstetrician يعني جو قف خبره له يعني أي obstetrician كانت بي delivery فجانة بحب بعض تانين expertise أو خبرة له أما experience له شو وضع سلالة مركب هدوس نيجوجين سيرة سكشن مستمع هدوس جنين experience فجانة delivery of breech سكوريجي سيرة سكشن is safe وحنا هاي دي سبحانه هاي فاجينال ديليفري سما يعني حالنا هاي فاجينال ديليفري قافكم متقانا وحنا نكو حيمان الديليفري اوف ذا حالنا دي حالنا فاجينال ديليفري دي حالنا فاجينال ديليفري بشر حالنا هاي بريماتور امور يعني موصل waxaan ka cabsanaynaa فاجينال ديليفري waxaan noo inuu yani بريتيرم سما waxay keenaysaa hypoxia waxay keenaysaa trauma and so on sama the management qaabka markuu manage gareynaysaa nahnay vaginal breech sama vaginal breech waxaan waxa lahaa sama first stage second stage first stage ka taqaan leeyahay waxba isku dhiman first stage waxaan ka soo hadlaynaa sida taqaan manage garay admission kii program kii showdiisa oo fi stage iska xidha markii second stage soo gaar maxaa dhacay second stage soo gaaro يعني waxaa dhacay in la sameeyo spontaneous inuu caadi soo baxo spontaneous breech delivery badan ma dhacdo assistant محاوي يعني قيبة كمية أساعد السماء يعني قيبة كمية to assist مثلا يعني for delivery of the shoulder ما بتنسى shoulder كنا صابح حسه after coming head وحتى حالا مرك assistant أسمعنا سابش مرك اسمه دي كل صباح بدنا مرك مرة عيسى وبحنا حوالي assistant وبحنا لسه of doctor كان midwife اسمه زين حاول الصبح حيرة طبعا assistant حيرة ساعد السماء سما حيرة كساعد السماء سما يعني حالا assistance of indicated for delivery for majority of cases كحالا حيرة وبحنا assistant كان صباح لكن صباح سما أما extraction سلام صباحنا تبع سو معنى ما ذلك وحبا دوركم مرة ماشي هذا اللي سوق بنيس delivery without maternal assistance هذا حبا هذا اللي سوق بنيس هذا اللي سوق جديد سما أنا مستوى حالنا هي أنا لكن شرط إنه سجلين نو سي بي دي وأنا سمعت هاي كونتراكت بيرفيس كانوا أديكويد هاي لايكر كانوا أديكويد هاي سيرفيس كانوا هاي fully dilated يعني هذا تسوق ده تسكت إنه حوك سجيد وحكيني سيرفايكل كتير صح mechanism of labor كم حصل بحينا هنا مركب حصل بحي بطك سما يعني مركب حصل بحينا
number ko butuga soo baxay kadibna waxa leen engagement-ka oo sameeyna waxaana waa 10 cm oo loo yaqaan by triconteric diameter sama markuu soo baxo butuga soo baxay kadib waxa leenahay wuxuu wareegsanaa sama markuu soo baxo wuxuu noqonaa sama longitudinal ama oblique markuu soo noqdo kadib butuga waxa leenahay wuxuu soo imaana anterior يعني كل صباحا مركبته صباح تكلم صباحي كده بحمانا anterior سو قبلنا anterior كده ما قبلنا صباح صباح هذا وعينه اوبليك قبلنا anterior shoulder كده ما قبلنا ورجينا هذا صباح anterior shoulder سما تسمع علينا هو the way of delivery of the كلنا صباح بدك كده ما صباح delivery of shoulder سما كده علينا هي يعني علينا هيد كيا وسوقنا بالفيك سما ليش انا ادوم يسمى يعني هيد مركب بالفيك سوقنا وسمينا الروتيشن يعني كل واحد سوق بدو waxaa soo baxay anterior and posterior kadib sakramka waxa keenaysa anterior yani sakramka waxa soo jeedaysa oo wareejinaysa waxa kale ka anterior the back one anterior noqda marka soo qabato waxa soo baxay posterior shoulder kadib waxa soo harayo the head sama waxa leena markuu head soo haro waxa loo yaqaanaa qaybta u dambeeya waxa loo yaqaan after coming head marka waxa leenahay markuu soo gaaro waxa leena insert sama markuu head soo galo waxa leenahay mostly wuxuu sameeyaa rotation waxaan oxide ka noqon markii وحسن هذا أكثر posterior نقول إنسان إذا مستوى إحنا نقول أنا anterior مستوى كيس كنا نقولنا سكرم كنا نقول إنسان يعني سمتها نقول كذا posterior لكن هو غير كيس كنا أكثر كنا نقول إنسان posterior سمح لكن مستوى حالنا هاي أكثر كنا نقول إنسان مستوى rotation نسميه إنسان anteriorly أن سكرم كنا نذكر anterior position marka second soo gaaro waxa uu muhiim sanad ahaanay markii waxa soo baxay jirkiisa waxa soo baxay batuki waxa soo baxay back sama of the fetus ki waxa soo baxay shoulder-ki waxa meesha ku haray waxa waay waxana waa head-ka sama head-ka meesha ku haray wixii ma soo baxay ko waxa soo baxay batuki aan lower limb-gi kadib shoulder anterior and posterior shoulder head markuu haro waxa la isticmaalaa monofer lahay Marshall method iyo Bilicius Ismaili فايد منافر مدع وحوالي نيجي سؤال ألفي ينا استعمال فرصة يعني مدح ماشي كل حريت كلا صباحين هاكم صباحين على قناة مركب وحلوة قناة يعني partial breach extraction أو سماه عشان breach the delivery in the second stage يعني delivery of the after coming head نوع ولا قناة هلا after coming head يعني واحد كل حرام ماشي أكلي head كقارن من قابنا صباحين لما مدح ماشي كقارن أنت كلا ما صباحين صح مركب كان مارشالك صح مارشال كان شيء كان مارشال ما حنا سمينا هذا أوريدو صباح يعني وحصباح اللور رميكي وحصباح بوتكي وعلى نجد باك وأنا نقطة anterior keep the back أنا نقطة anterior عندي وصباح التصامح ما ماشي كوارا مركب حنا after coming head مركب حسنا سديس وحواي قعدت في دكتور كذا هو صاحب نسا لور رميكي قبل نسا وجدين نسا صح كرو قاعد سوا كنا كرو قاعد مركب قاعد ما حسنا نسا أنت معي هاد فلكشن ما هين وحسبني أنا أبورو فلكشن حنا مركب فلكشن هي حيانا دايم تركي مدح سما فاتك سنو ما كان فيه كرا لو قاد وأوجدينيسا the side of the mother سماه أوجدينيسا مركز كيس ما حدا عمل فيه يعني واحد سميه اسمه يعني فلكشن سماه ماشي حد اسمه يعني هو سمينا هيد وحسمينا فلكشن وحيرانا دايمتر كنا نقرأ مركز سب أكسبيتو بريغماتيك سميت حسبنا هنا سب أكسبيتو بريغماتيك وفيرتكس بريستيشن ولا بين قناة مركز واجديسي وأكسبها ماشي ده small diameter كوير عليه هنا سب أكسبيتو بريغماتيك وإزجدينا مركز وقبنا سوا كنا فيريا وقبنا وبريجينيسا ويف وأوجدينيسا دنka maadarka sama kadib soo baxa tis waxa loo qana markay Marshall method badana Marshall method ka saad ugu badan oo la isticmaalo sama badana xalayna waxa la isticmaalaa waa Marshall method kan kala jira kan kale waxa sameynaysa kan kale yani gacanaha hoos ka keenaysa tis waxaan waa hand left hand tan waa right hand sama yani gacan hoos ka soo qabanaysa ila kor ka soo gelinaysa sama waxa qabanaysa bag tan hoos markii ay qabanaysa waa kana nose-ka sama يعني ماشي هسكت قبنيسا لبضة فرق قبنيسا إكسام واكن ساسو قبنيسا لبضة جامينا حكينسا هوس إذا شو قلنيسا من كورك شو قبنيسا وقدينيسا مركي ساسو حسمينيسا مركي وحسمينيسا فلكشن كي سما أنا ضام حسمينيسا تين مرة حيات وقدينيسا قديس كل حكسمينيس ما يفهم لكن كم ماي كعنو سو قلنا وعم شو قبنا هوس إيش شو قبنا سما وأقول حاجة إن جاول غبطة waxaa marka inuu dislocation la marka la joojiyo waxa la kor hagaag meesha soo qabanaysa soo hadna kan kala kana qoos u kaaya sanka farto gacanta hoos wataan leftiga tan right ka hoos ka soo qabanaysa waa ujeedina marka waxa loo yaqaan magacana xalanay Mercius Ismaili Manover badan Manover ka badan isticmaalaan doctor iska wax kan Marshall badan waxa isticmaalo kan waxa xalanay hada Marshall kan waxa midwife ka isticmaalo waa qabanaysa waa gidina bis dhanka wada gidinta sida midwife Manover ka badan isticmaalo badan kan doctor iska isticmaalad ولا يقارن مرشة اسمه شيء يا قبنيسا
هذا سمينيس خلاص صباح حسام أما استعماشيت فرصة بسبب يعني جيك لما صباح حكوها رمضح فرصة بسبب ولا صباح صباح حسام فرصة بسبب استعمال صباح حسام total bridge extraction مثلا كلام bridge كلام total extraction كسوة مجيء كتها سنة اكتشف معك سنة صوت بحنا integration نجر يعني برلانك تسكن stage على هذا توينز واي ميدا صباح كي كلا كوجي ماشي وصو خبرنا وسوي جيدنا وسوي بحدي سما أما حكى عبس تبع إنه كان غضم تقنا second twin إنه return second twin إنه section الله سماه لكن تسوي كلا حالا كده بتلاقي ماشي كلا قصة خبرنا يعني extraction وصو خبرنا وسوي جيدنا توينز كله مثلا ديسيز هذا قبطة واحد رأينا صوت جابي أما برلابسي كورة دع واحد رأينا بوبسيو أما في السر واحد رأينا صور قبطة أن صوت جديد محاول إكستراكشن حكونا يعني إكستراكشن حكونا خوي واحد بدور كمان أنا واحد صوت قبنا رتو صدقي وصوت جديد سا بتوقع صوت بحي سما باج وحكونا نسا anterior سما مثلا باج anterior كل على سا صوت بحي نسا shoulder right and left shoulder كدب هيت ما كمش كوار لبدي كوفر هاي قبل تجدسه لأن ما تجدسه أرشالكي أما مرسيس كي أحد شيء نوع إن هوز عندك سويس أساس سوكيدس ساقبت سان كويس ساقبته على نتيجة حالنا واكنا extraction يعني واحد يركض أيام حلقة عن complicated delivery سما of break معاك كده يعني واحد صبيح وايب سما بالفك بريم كو سوقي وايب سما يعني بنتك واحد سوقي وايب بالفك بريم محاسمين سامر كاس لا ميدواي inefficient return contraction اكستوسين سي زيادة سما يعني اكستوسين أو سمينا اكستوسين كهدي كونترانديكيشن يستان مرسين هذه لكن كونترانديكيشن إساني اكستوسين أسينا أما سينتسينون كونتراكشن زيادة لنا وصباحها سما مجرو efficient contraction كي مجرو contraction في عنا جرهاية واحد يجرو contract بريفيس هذا contract بريفيس سيسين سكشن أسمه سايز كبيبي وين سيسين سكشن أسمه لكن ده efficient أجرو سي contraction في عسي سيدا كلنا حالنا واحد يجرو كرته إن في أنا سيدا كلنا حالي يحتاج أنا إنه سوقي واي تيرعي هذا إنه سوقي واي إن لط كنا إنه outlet كسبحي واي outlet كنا كسبحي ما حكينا كذا ماشي واحد فوز تاجا سيرفيس وكنا هو سوق له سيرفيس كتاعين فول دالتش هم صباح ما حكي حاجة إن efficient هذا حاجة كرته إن efficient uterine contraction ما حسبنا سا ما حسبنا بريد extraction سوق بسوق جدله بريد extraction ما بناك ويا outlet كوا يعني حاجة كرته contracted outlet كوا حيها با contracted outlet واي CBD سيرفيس سماه وحاجة كرته بريميوم كوا حيها بريجيت بيستم سماه سماه يعني external leg دي سما أي حالنا هاي extended legs كوي extended وحاجة ما يساعد حلو راح بريد deeply impacted سما أي حالنا هدي حالنا أيه كلا حالنا communication إسكا أو ليه محيط بريد حلو communication fetal and maternal يعني حلوها الله بحبه maternal fetus communication كلا كان محيط كو إنه برلونج الليبر نقدر حيوان كانوا برلونج الليبر كحكي كنا maternal distress هو كنا ثابت هو ده حكي كتا obstruct الليبر لكن كتا genital laceration and trauma which is the risk of postpartum hemorrhage أنا حكي كنا prolonged labor أنا حكي كنا laceration إسكي سما سيدا كل حالة حكي كنا كرتا maternal sepsis مركو حالة this is complication of breach of maternal إنه كنا كتا prolonged كنا distress obstruct labor إنه كنا genital trauma laceration يسوكر إن زيادة risk of postpartum hemorrhage and puerperal sepsis بل مسمى حواي after delivery يعني حالنا 6 week أو هذا after بيوبينا فيسك كجرتو حالنا أنا هذه sepsis اللي ماتو puerperal sepsis بركو حالنا أيضا هذا حنشوف عن complications كنا عن complication معه قيبين الله maternal and fetus سواء maternal ده فهمني fetus محويها مركي maternal محوي كأنك لو رسمنا prolonged أو obstructed labor maternal distress سواء trauma laceration postpartum hemorrhage fetus محوي كأنك كنا هاي fetus محوي كأنك كنا mainly محوي كأنك كنا asphyxia يحكي لك كأنك علينا هاي مستري trauma يحكي لك يعني المناظرة استعمالها أفتر كم من هيدك إنه كان intracranial hemorrhage إنه كان fracture and dislocation of cervical spine وأنا ما حاملنا بنفرض ثمانية في كلي كلام fetus injury damage وغير كده ثم كنا من مانتي pre presentation مثلا مانتي هذا حبلي بكرة من pre presentation تايس كيسة etiology جام risk factors كي how to diagnose كي how to manage optionات لأن أدير ودي أشرح كرتو أتصير عن تحمل وشرح كرتو بس ترك جوكتنا أصير عن وشرح كرتو وبالله التوفيق.